ninkan waxaa la yidhaahdaa Nick Vujicic. lugo iyo gamcatoonna male. dadku waxay weydiiyaan su'aalo fara badan. su'aalaha waxaa ka mid ah always ama had iyo jeer wad faraxsan tahay. maxaa sababaytaa? keligaa ayaad socotaa oo cidna ma raacdid. mar walba waxaad niyadaada u sheegtaa inaad tahay qof heer sare gaari kara, adigoo aan dadkaba la mid ahayn, oo lixaadkaagu aad hooseeyo ama lixaadla. waxaa ugu jawaaba xikmado laga yaabay dadka aqoon-yahanadana ay furfuri kari waayaan mararka qaarkood. xikmadaha waxaa ka mid ah anigu waxaan ahay ruux idinkaba liita shay ama qaab ahaanba, balse dhanka maskaxda idinkama liito oo idinka mid baan ahay. qofku marka uu indhoolo yahay waa markuu indhaha la'yahay, laakiin marka uu indhoolaha dhabta yahay waa marka uu maskaxda la'yahay. waa xikmadaha ka mida xikmadihiisa. wuxuu ka hor hadlaa mararka qaar 2 milyan oo qof, 4 milyan oo qof buu ka hor hadlaa. marka inagu haddii wax yar maanta inagu dhacaan live intaynu soo galno ayaynu dhahaynaa maxay waxaasi iigu dhaceen, maxay sidani u fashay, maxay waxaani sidaa u faleen. u fiirsaata noloshiinu aad ayay u hoosaysaa. adduunyadu waxay maraysaa heer sare, balse inagu maanta waxaan maraynaa heer aad u hooseeya. riyaliga marka laga hadlayo adduunyada, qof walba waxay isku dayaan ama qof waliba wuxuu isku dayaa inuu wax soo kordhiyo, balse inagu taa iskuma badayno. waxaana sabab u ah hami yaraanta. qofkii hamile waa la niyad jabiyaa, balse walaal, qof walba hadduu aamino inuu wax soo kordhin karo, guul ayaynu gaaraynaa. balse taasi ma ay